waxaan ka koobannahay wasiirro iyo xildhibaano iyo maamulka gobolka iyo intaba maamulka degmada waan dhannahay insha Allah. munaasabada aad u ballaaran ayaa lagu daafuray kastamka Tuurdubi barxuduudeedka u dhaxaysa Puntland iyo Itoobiya. munaasabadan lagu daafurayay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ku-xigeenno iyo wasiiru dawlayaasha Puntland iyo sidoo kale wasiirro ka socday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xildhibaan ku matala dawlad deegaanka dawladda federaalka Itoobiya. sidoo kale munaasabada waxaa goobjoog ahaa qunsulka Itoobiya u fadhiya Puntland. ugu horeyn waxaa munaasabada furay gudoomiyaha degmada Goldogob Cabdulqaadir Khaliif Xaashi waxa uuna soo dhaweeyay wafdiga. ilaahay baa mahad leh aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ka soo qaybgalka xafladan aadka muhiimka noogu ah oo taariikhiga ah oo maanta runtii maalin taariikhi ah lagu furayo kastamka lagu daafurayo kastamka Tuurdubi ee labada dawladood ganacsigooda iyo socdaalkooda isku xiraya waa idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada kastamka Tuurdubi ee degmooyinka ma garanaysa Galdogob iyo Galaadi labada maamul ay iska haystaan. ilaahay baa mahad leh waqtiga aad siiseen iyo hawsha muhiimka u socotaan waan kaga mahad celinaynaa. sidoo kale waxaa iyana goobta ka hadashay gudoomiyaha degmada Galaadi ee gobolka Doollo waxayna ka mahad celisay soo dhaweynta. ku soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaato oo ka qayb galo furitaanka kastamkan wax badan ka bedelaya bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool labada deegaan labada dawladood iyo labada degmaba waan ku faraxsanahay waxaan u mahad celinayaa mas'uuliyiintii labada dhinacba ee ka soo shaqeysay in uu hirgalo kastamkan Tuurdubi. gudoomiyaasha gobolka Mudug iyo Kandoolo ayaa iyaguna si wada jir u tilmaamay in furitaanka kastamkan uu muhiim u yahay labada dawlo. shacabka reer Puntland kastamkan aad buu ugu faraxsan yahay inay walaalahood reer Itoobiya oo daris la ah ku kala ganacsadaan amniga iska kaashadaan dhaqaalaha iska kaashadaan isu socodka iska kaashadaan wadooyin laamihi isu furmaan aad baan ugu faraxsanahay. waxaan dhex maray wada shaqayn fara badan baan dhex maray intii hadda isbedelku ka dhacay dawlad deegaanka Soomaalida Puntland waxaan dhex maray xiriir fiican baan dhex maray wada shaqayn fiican baan dhex maray. waxaad xasuusataan kal hore hogaankii nabadgelyada hore ee dawlad deegaanka iyo wafdi hogaaminayo wasiirka Dr. Cabdi Sheekh Biixo fadhiyo ku jiro yaani waan ku jirno inaan tagnay Garowe inaan nimaanay hadda ka hor Galdogob gudaheeda inaan gudaha u galnay anagoo nabadgelyo ka shaqaynayna la xasuustaa. intaas oo dhan waxa uga mahad celinayaa dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee Puntland gaar ahaan gudoomiyaha gobolka muddadii hadda aan shaqaynaynay xiriirkanaga haday noqoto iyo labadan degmo haday noqoto dhan walba haday noqoto shaqooyinkii runtii u fiicnaa ee nabadgeliyo ama dhanka Puntland gudaheeda ha noqoto ama dhanka dawlad deegaanka Soomaalida gudihiisa ha noqoto. wasiiradii ka socday dawlad deegaanka Soomaalida iyo waliba kuwa Puntland ayaa iyaguna isla waafaqay in furitaanka ay tahay mid loo wada hamuum qabay isla markaana ay qolaba dhankeeda ka soo riixaysay waxayna guul ku tilmaameen in maanta uu furmay. Soomaaliya waxay leedahay dekad waxay leedahay bado malay bay leedahay Itoobiyana khudaar iyo waxyaabo fara badan bay soo saartaa marka waxay fudeedinaysaa iyadoo la tixraacaya World Custom Organization shuruudiisa in ganacsiga labada shacab ee walaalaha isdhex galaan. marka waxaan soo jeedinayaa in laga qayb qaato labada dhinacba sidii loo qayb qaadan lahaa wada shaqaynta kastamka soo dhaweynayaa. furitaanka kastamka Tuurdubi kaasoo muddo badan soo jiitabayay jiitankaasi soo Dr. Cabdi Fataax u sheegay idinkuna aad u qabsantiin bari dhinacayagu ahaa laakiin intaas ka hor waxaan jeclahay inaan aad idinka mahad celiyo soo dhaweyntii iyo qaabilaadii fiicneed oo noo samayseen oo aniga shakhsi ahaan ila qabtay 300 oo arday iyo ka badan ayuu ila fududeeyay in ay waxbarasho ka helaan dawladda Itoobiya iyo dawlad deegaanka Soomaalida labadaba uu ila fududeeyay marka waxaan leenahay thank you very much aad baad u mahadsantahay wasiirka wasiir Cabdullaahi Maxamed Jaamac oo isaguna markii hore ahaa wasiirka waxbarashada haddana ah wasiirka tifadka iyo tacliinta sare wasiirka ganacsiga ee Puntland oo shaqo baaxad leh
ka qabtay inuu hirgalo kastamkani intuma waa mahadsantihiin laakiin laa shukra cala alwaajib muhiimadda aan ka leenahay waxa weeye in dalkeenu fakhriga ka baxo qodobka labaad waxa weeye runtii opportunity weyn baa meeshan ka bannaan annagu bad baan leenahay dekeday leedahay kalluun baa ka soo baxa cusbooyin baa dhinacyadeeda ka soo baxa laba warshad cusbaa ku taalla waxaan annaga qaadanay dowladda Puntland siyaasadda koowaad oo aan qaadanay waxa weeye inaan ka shaqeyno horumarinta dhaqaalaheena inaan kobcino marka macnaheedu waxa weeye inaan gaarno cid kasta oo ay suurtagal tahay oo aan la samayn karno isbahaysi iyo iskaashi dhaqaale waxaan la soconaa adduunka marka horumar dhaqaale laga hadlayo waxa ugu muhiimsan waxa weeye xiriirka adduunka aad ku leedahay si aad u heshid maalgashi si aad u hesho in ganacsigaaga adigoo resourciga aad haysatid inay baxaan oo gaaraan meel kale adiga kuwaad u baahan tahay inay ku soo gaaraan cilmi jaamac cabdi raadiyo dolo turdibi